dhammaantiin adeer bani islaamiya daawadayaashana ku xidhan waxaa lagu soo dhawaaday video cusub. Videoga maanta waxaan ku tusayaa haddii miisaanka dhiman yahay ama miisaanka yar yahay si miisaanka isugu kordhin lahayd. Marka maanta waxaan tusayaa quraac aad u wacan oo calories iyo protein iyo wax walba ay ku badan yihiin si maaragtay miisaanku uu kordho. laakiin si mid ogaada haddaad waxyaalaha protein ku badan yahay ama cuntooyinka aad u cuntid miisaanku wuu ku kordhiya laakiinse qof naaxay baad iska noqonaysaa buuran laakiinse gym ku dar ama sports ku dar kadibna murqaha kuu soo baxay kadibna qamarji baad noqonaysaa. Marka kusoo dhawaada waxaan kaga bilaabay marka ugu horeysa quraacda, berri waxaan soo gelinayaa qadada, habeenka ku sii xigana waxaan soo gelinayaa cashada. marka cuntooyinka ugu wacan ee marka gymka sameynaysid ama miisaanka isku kordhinaysid murqahana samaysanaysid oo dhan baan maanta inii soo gudbinayaa daawasho wanaagsan. marka ugu horreynta waxaad soo diyaarsataa basal, qasaac, ukun ama beed saad u taqaanid iyo yaanyo. ugu horreyntii waxaanu jarjaraynaa basasha oo aynaanu aada u yaryaraynayn qofba siduu u jecel yahay. kadibna waxaan ku xijinaynaa yaanyada ayaanu kadibna jarjaraynaa. kadibna waxaanu dilaacinaynaa beedkii ama ukuntii oo aad ku shubtay jabcad ama waxaad doontid ku shub, waxbaygama gelin adigu wuxuun ku shub ma garanaysaa. kadibna waan walaaqaynaa. kadibna saliid baynu ku shubanaynaa digsiga ama waxaad adigu wax ku shiilatid oo kale. kadibna basashii baynu ugu horreyn ku daraynaa. ugu horreyntii waa basasha ku dara. kadibna basashanu cabaar karinaynaa, fahmaysaa. kadibna basashu markay yara casaato waxaanu ku daraynaa qasaacda. kadibna waxaan ku daraynaa qaji ama pepper waxaad doontid ku darso ama pepperoni ma garanaysaa. marka anigu imika qaji yar baan ku darsanayaa. in yaroo milixana waan ku daraynaa ama cusbo saa u taqaanaan. kadibna waxaanu ku daraynaa yaanyadii ama tamaandhadii. kadibna cabaar baan isku walaaqaynaa. marka cabaar yara walwalaaq si ma garanaysaa ay yaanyadu u jilicdo. kadibna waxaanu saaraynaa daboolka adigu dhowr daqiiqo, 1 daqiiqo ama 2 daqiiqo meelaha u daa daboolka si ay yaanyadu u jilicdo. kadibna dib u walaaq, cabaar yara walwalaaq. ugu dambeyntii waxaanu ku daraynaa beedka. marka beedka sidaa ugu darsaa ma garanaysaa. adigu haddaad ama si kale ugu dartid ama sidan ugu dartid waa isla halkii uun, laakiinse saasaan jeclahay ama saa ugu darsada ama si kale ugu darsada. kadibna daboolka saar si uu wax walba ma garanaysaa isu yaro fiicnaado. ugu dambeyn waa inuu saa u ekaadaa, aad ha u gubin. hadduu gubto ma garanaysaa laga yaaba inay calorie ama protein ka dhinto. ugu dambeyn saas uu ekaanaya. markaad cuntaan alxamdulilah dhaho gymkana sameeyan iyo miisaankuna saas inii ku kordhaya. aad iyo aad baa mahadsantihiin daawashadiina daawateen. marka haddaad ka hesheen saaxiibayaal subscribe ama like wuxuu dhaxna awoodaan noogu qabta. aad iyo aad baa mahadsantihiin haddaad daawateen videoga. marka waxaan leeyahay saaxiibayaal subscribe haddaad awoodaan noogu qabta. commentigana waxaad kusoo qortaa haddaad rabtid inaad miisaanka iska dhigtid ama haddaad rabtid inaad miisaanka isku dartid inaanu kuu soo gelin. labadaba waan kuu soo gelinaynaa. dhammaantiin aad iyo aad baa horta islaamiya waxaan leeyahay maalin wanaagsan.